الحمد لله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مقدشو محمد الشيخ علي أوبو أنا مركب بيلها باجون ودقن مقدشو وعن هالكان قلبت أو سؤالياش سوون نمي ور روان السوق لغا شيغي أما تي في لغا شيغي إن أنا أركنو سيجا كشيغن هالكان أنا كبيني كنتي أنا كباجون هدان نعي بيلها باجون هل سودان الليين بس بنتي واحد صح. سودان كاس مقعيس ديني سودان كاس معلي لا سودان ديني مع الديني سودان كله باش بجون لها مجد وسودان كلية باش بجون على مسارتي والأقصين هاي وهدنا إنبغاث سودان ديلي وسودان كي إنبغاثي وضدك السوم على لو أنا المقعد صغري وسودان ديلي مع الديني oo suudaanka oo beelaha baajuun waa suudaanka keliya ee beelaha baajuun dhan oo xataa qof kasta oo Soomaali ah oo reer Kismaayo diili weydii waa yaqaanaa waa suudaan diili mahadi diili waa suudaankeena beelaha baajuun marka suudaankaas keliya ayaa waxna saxiixi kara waxna ma arkin oo diidi kara annaka haddaan nahay beelaha baajuun waxaan leenahay suudaankaas suudaan diili mahadi diili iyo ku-xigeenadiisa iyo waxaan nahay tameen laba odayaana waan mar dhow shir ayaa ku qabanay Kismaayo oo odayaasha dhan oo meel kasta oo jasiirada isku yimid shir meesha ku qabanay waxaa meeshaas ku soo baxay tameen laba oday oo aan ka mid ahay iyo waxaan guddoonsi iyo suudaankii iyo ku-xigeenadiisa meesha lagu canaasay waxa weeye shir isku gaar meeshaas waxaa dhacday nin maaragtay asagaba oo markino nasiib uu ku hesho markino uu ku helay anagoon marxuumka aniga horeeyay Allah u naxariisto oo dhintay oo istartameynay waqti aan xillanimo u tartameynay in maaragtay magaciisa meesha lagu qoray markii meesha lagu qoray Suudaan diin iyo anigaba dacwo ka fidanay dacwo ku ognay xataa raadi shabeella ka hadalnay dacwooyin waxa u gudbinay guddiga khilaafaadka وأنا محمد الله اللي يراد أنا نودون كذا العقي وراك أرونا حتى أنا أدواهي أنا حاوكسوني أنا نودون قاي مركا روب بحسدي ما قال لي أوجاس الصومالي هدي له فيديو قبيلة ذا ماركنو هو حلا بحان أوجاس يلا بحان هو بغرة يلا بحان هو اسمه يلا بحان هو وبره يلا بحان هو أبو حلا بحان أنا كباجون سلطان علينا وحاد عذي in ninkaasayto oo markiisa war magacayaal ahaa oo anaka dacweynay oo macal suudaanka dacwadiisa xataa u gudbinay guddiga khilaafaadka u gudbinay in maaragtay oo markii dambe la yiri oo nala yiraahdo 3 bil 4 bil ka dacwada socotay waxa la yiri dib aan u dhigay dacwadooyinkiina mar dambe wixii la qaadi doonaa sidii ayuu suudaankii oo Kismaayo ugu laabtay kadib waalii iska sii waday waa la wada aamusay wixii sax ah wixii kale waa isku waday marka maanta anaga waa ka aamusneen maanta wuxuu gaaray inuu yiraahdo qofa saxiixa waxa saxiixa wax Soomaalida horta been ma sheegto laakiin ma been ma sheegto laakiin dadka been ma sheegto maaragtay wax oo asaga oo maarkino si maarkino khaldan meesha ku soo galay wax sax ma bakeeni karo hal ilaa marka hal maarkino xaraane xalaal ma dhalayso markino dad loo yeero oo la yiraahdo waxa la sameeyaa dada waxa lagu suubinaa in dadka loo sheego oo la yiraahdo hebel loo cala masaara wax soconaya maahan sidoo kale hadanteeda kale waxaan u sheegayaa aniga wasaaradda arrimaha gudaha waa waxyaalaha sidaan oo kale oo dhibaato ama wax ugu imaanayso sumcad xumo sababtoo ah baajuun meel kastoo joogaan waa la ogsoon yahay suldaankooda waa suldaan diili mahadi diili qof kasta la weydiin karaa ninkan meesha ku qoran min sax ma cid doorata ama cid calam saartay ama cid ma jiraan waa lagu magacaabay meeshaas intuu ninkan asal sartimeen ku magacaabay nasiib oo yeeshta aniga waa dacwadii dib aan laga dhigay marka maanta ninkaas oo kale wasaaradda tiraahdo meesha ninkaas ay u qoran wasaaradda ceeb ugu imaanayso ilaa baajuun maanta waa la ogsoon yahay ninka suldaanku waa la ogsoon yahay nin mugdi ku jira ama nin oo gacan ku rimis loo keenay maaha marka waxaan u sheegay wasaaradda arrimaha gudaha odayaasha aan saxda ahayn inay ka fiirsadaan sababtoo ah sumcad xumo ay dawladdan u keenaysaa ee wasaaraddan u keenaysaa
عد دورت مال هل شيء هل ما بجرب حتى ما كانوا خف يقان ويقان حتى إنه عسيا ما بجرام أنا وحنا يقولون إن أنا ودان واحد العقي يعني العقد تقول أروجري وهايا نودون عمنيك أو مدح محل ويقانا إن ما رتي وح وبحيا يعني دياب بحيا وحكستا بحيا محب بحيا أصير ما أنت العسول استقبل لي أنا قف صحيح هاي أنا قف دورنا هاي هذا ميل هاسن هذه ماركينه بصح أيام waxaan ku waanina walaalkeena waxyaalahaas ka noqo waan ogsoontahay waxa taa inuu is ogtahay waxaa wanaagsan dadkaada inaad dhinac soo raacdo fidna dadka ka dhex abuurin waa lagu yaqaanaa hadda kor waxaa dhacday inuu anaka xataa nifidneeyey oo gurigiisa fidna lagu soo abaabulay oo la yidhi alaab maaragtay oo nin uu adeerkeena uu soo gatay uu iibsaday uu yidhi nabadoonka iyo ku-xigeenadiisii alaabtii baajinta loogu talagalay iyagaa iibsadeen markaasuu duqi alaabtaas lahayn cadeen uu keensaday markaasuu dhabisraal ahaaday ninku waa ninka waxyaalahaas gurigiisa lagu soo abaabuli jiray waay marka waxaan u sheegaynaa waxaan halkan ka caddeynaynaa odayaasheena ama siyaasiyiinta qurba joogta kuwii gudaha jooga kuwa dibadda jooga iyo gudahaba waxaan u sheegaynaa waxyaalahaas inay waxba ka jirin odayaasha halkan waa fadhiyaan shalay u dambeysay aniga waxaa codkiisa waa nii soo diray cabdi barnaamij baratiib codkiisa waa nii soo diray waa odayga maanta xamarka noogu weyn waay waa noogu da'da weyn wuu sheegay macnaa inuu duqa qof ku yahan odaygaas wuu sheegay marka waxaan codsanaynaa in maaragtay waxaas oo kale qaas ahaan wasaaradda arrimaha gudaha inay ka digtoonaato waxyaalahaasna ay ka fiirsato annaka haddaan nahay odayaasheen oo hore u sheegan yuusuf hore u hadlay awees hore u hadlay shooli hore u hadlay mudii cabdishakuur hore u hadlay odayaasha waa wada hadleen waxaa fadhiyo cumar saalim umaari ninka caanka ah isboortiga wiilkiisa fadhiyo marka waxa weeye in maarkina waxyaalahaas oo kale dadka aan lagu qaldin hal ogaada taas insha allah waxaan ilaah u rajaynaynaa walaalkeena oo waxyaalahaas kusii socdo qaladka kusii socdo asoo og inuu qalad kusii socdo waxaan leenahay soo noqo dadkaada dhinac ka soo raac suldaankeenna waa suldaan diili wax kastaba ay ka go-aan talada ay ka go-do waa asaga maaragtay inaad dad meel isugu keento ilaahay wuxuu bixiyaa haybadu ilaah bixiyaa xataa haddii la fiiriya xataa ana duuliga xataa halmaan soo qoslaya ma arkin banigaas si wax ku noqon karaa mawdo ma noqon karaa ninkaas aan wiliga soo qoslaya xataa ma marka waxaan rabnaa maaragtay in uu soo noqdo waalis dib uu soo noqdo annaka albaabkiina waa furan yahay cid uu xiran tahay ma laha haddeer maaragtay waxyaalo badanaa iska jiraan waxaa la doonayaa inaan la midoobo oo hal la ahaado oo meel dadka isku wada meel ay ka wada socdaan insha allah waxaan ka rajaynaynaa markay markuu soo gaaro inay waxyaalahaas ay ka noqdaan wax u soconayna maahano aniga meeshan waraaq badanaa ku haya waxaan ka soo qaybgalay intaasu shiraa ka soo qaybgalay shirar badanaa ka soo qaybgalay oo kulli wax ku saabsan oo beelaha baajuun ku saabsan aan ka soo qaybgalay tii haddii laga soo bilacdo markii iska dhigista tii shirsiinta tii jubbooyinka looga hadlayo kulli anaa ka soo qaybgalay marka insha allah ogaasyada iyo boqorada iyo warada soomaaliyiinta kulli ogaasyada waxaan u sheegayaa waa intaqaynaan kulliba don maxamed sheekh cali oobo in leeyahay ka fiirsada dadka qaarkiisa oo maarkino gacan ku rimiska ee ka fiirsada waan salaamaya dhammaan waxaan salaamayaa inta dhimatay oo qaraabadeena oo ugu horeeyo anaa musebeeba allah u naxariistaa leenahay odayaasha maanta saas isku yimid allah u naxariisto inta dhimatay allah u naxariisto sidoo kalena maanisha mankuuyin allah u naxariisto inta familka dhimatay in allah uga naxariisto waxaa leenahay soomaalina allah mideeyo waddankeena nabadgelyo allah noogu soo celiyo ilaah waxaa ka rajaynaynaa waddankeena uu noqdo waddan maaragtay oo nabadgelya ilaah ka rajaynaynaa sidoo kale waxaan aad iyo aad ilaah ugu baryaynaa magaaladeena ama meesheena Kismaayo in maaragtay dhibkaas hadda xogaa ka taagan murankaas ka taagan inuu ilaahay nabadgelyo ku dhameeyo aamin soo ilaahay nabadgelyo ilaah ku dhameeyo afgarad allah ku dhameeyo insha allah ilaah waxa u rajaynaynaa in meesha waxba ka dhicin oo nabadgelyo ka dhacdo insha allah warkeena maanta intaas uu ku egyahay waxaan leenahay walaalaheena barnaamijku waa nin furan yahay iska daaya maaragtay dadka inaad kala qaybisaan iska daaya kasoo noqda waxyaalahaas wax soconaya maaha waana la ogsoon yahay wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh